Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhammaan. Maanta waxaan baran doonaa 5 eray oo muhiim u ah qof kasta oo danaynayo inuu barto luqadda Ingiriiska. Erayga koowaad oo aan baran doono wuxuu noqon doonaa opportunity. Opportunity waa fursad. Example: This is a great opportunity. This is a great opportunity. Tani waa fursad weyn. Erayga labaad improve. Improve waa horumarin mise hagaajin. Example: I want to improve my English. I want to improve my English. Waxaan rabaa inaan horumariyo Englishkayga. Erayga saddexaad oo aan rabno inaan barano waa confident. Confident kalsooni leh mise isku kalsoon. Example: She is confident when she speaks English. She is confident when she speaks English. Waxay isku kalsoon tahay marka ay English ku hadlayso. Erayga afaraad waa challenge. Challenge waa caqabad. Example: Learning English can be a challenge. Learning English can be a challenge. Barashada Englishka waxay noqon kartaa caqabad. Erayga shanaad oo ugu dambeyso aan baran doono waa success. Success waa guul. Example: Hard work leads to success. Hard work leads to success. Shaqo adag waxay horseedaa guul. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan haddii aad danaynayso inaad baratid luqadda Ingiriiska iyo Soomaaliga, subscribe saar channelka Ify Online. Mahadsanid.